sagaalka wasaaradood ama toddobada wasaaradood iyo labada hay'adood ee dawliga sida bangiga kaas oo aanu kaga fikiraynay oo ah madashii ugu horeysay ee Soomaaliland lagu qabtana aanu kaga fikiraynay war sidee baynu wax u soo saarnaa sidee baynu su'aalo badan oo inoo hor yaala aynu uga jawaabnaa waan ku filan kari weynay in wasaaradaha dhexdoodu ay ka jawaabaan sidaasaa keentay in aanu idin soo bandhigno haday tahay baacimusharigii maalkashayadaashii haday tahay hay'adihii haday tahay beeraleydii iyo kalluumaysatadiiba shirkan ama madashan waxaanu ka nahay wasaaradda beeruhu oo ay kaga jirtaa in cuntadii la soo saaro oo tiirka koowaad ay ka tahay cunto kordhintii sidii aan halkan wasiir Saacad uu ka sheegay waxaanu soo dhoofinaa ama inoo yimaada boqolkiiba 94 waxaanu isticmaalaynay haday cunto tahay haday dhar tahay haday agab kale tahay marka dhaqankaasuna maanta wuu isbedelay oo wuxuu isu bedelay food security ba isbedelay dagaalka maanta Ukraine ka socda Russia wax weyn buu adduunka ku soo kordhiyay wake up call na wuu noqday in laga taxadaro oo nation ama qaran kasta uu ku talagalo inuu at least la soo baxo wuxuu cunayay iyo wuxuu warayay iyo wuxuu cabayba inagu halkeeynu kaga jirnaa inagu waxaanu kaga jirnaa halka ugu hooseysa marka la eego waxa la inoo soo dhoofiyay waxaanu dhoofinaba xagga beeraha beerihii waa nolosha ama cunto la'aani waa nolol la'aan beerihii waa nolosha koowaad ee aynu ku tashanayno dhulkan ballaaran ee ilaahayna siiyay ee intaasoo boqol oo webi marayaan ama toog biyo sida oo nasiib darro biyahaasu ay ku dhammaanayaan baddaas ama meel ilaa oo ilaa hadda aynu ka faa'iideysan kari laanay marka hore waa inaynu biyihii qabsanaa roobka waayo biyihii la qodayay way naga dheer yihiin tacabna waa la gelayaa waana dhaqaale xoogina wuu gelayaa marka inaynu qabsano biyihii roobka biyihii markaynu helno ayaynu helaynaa beerihii xaqi beeraha beeraheennii waynu kala go'annahay hay'adihii dawliga ahaa ama wasaaraddii beeraha iyo beeraleydii xiriirkoodii waa yari sidaynu xiriirkoodii u kordhinaa sidaynu isugu xidhnaa siday hadday caafimaadkii beeraha noqonayso hadday tikniikiskii lagu beerayay ay noqonayso iyo markuu soo baxay suuqgeyntiisiiba hadday noqonayso waa in laga fekeraa waa su'aalina hor taalla oo madashan hor taalla waxa soo xigaya beeraleydii markaanu xiriir la sameeyno qolooyinkeenii maalkashayaasha ahaa inaynu iyagana la sameeyno oo aanu tusno dhulkan aynu degannahay inuu yahay dhul wax lagu beeri karo waxna ka soo bixi karaan barwaaqana ah waa inaanu xiriir la sameeynaa baacimusharigeenii oo baacimusharigii ku dhiirigelinaa in ay beerihii beertaan oo dhulkii la aamino oo dhulkii la maalkashado annaguna haddaanu nahay wasaaraddii beeraha ama xukuumaddii nahay inaanu annaguna sharciyadii samayno sharciyadii way noo samaysan yihiin barna way naga dhiman yihiin kuwa dhimanna gacantaanu ku haynaa inaanu sharciyadii lagu beerayay wax ama xidhiir lagu samaynayay xidhiirkaa saddexagalka ama triangle-ka ee ah wasaaraddii ama xukuumaddii qolooyinkii baacimushtariga ahaa ama ganacsatadii iyo beeraleydii oo dhulkii ah inaanu saddexdaa isu keenno fududayno xiriir hadda sameeyno su'aalaha ka soo bixi doona halkana ay ku beesgaraysnaadaan ama ay waaqiciyan ku noqdaan in la isweydiiyo maxayna kala hortaagan saddexagalka maxay saddexagalkaasi u shaqeyn laayeen maxaynu wax u beeran laanay maxaa haddaynu beerano beeraheeni ay u noqon laayeen qaar caafimaad qaba oo midho badan inoo soo saara oo hektarkiiba inoo soo saara in ka badan 30 ama 50
maxay kiintaalo maxay ama hadhuura ama qamandiya ama waxa soo raaca waa inaynu isdhiiri gelinaa su'aalo badanna isweydiinaa oo madashana uu ka soo baxaa ficil aynu ku dhaqmayno oo wasaaradda beeruhu horumarinta beeruhu hormood ka noqonayso hormood baanu ka noqonaynaa siyaasaddii baanu idiin samaynaynaa tahsiilaadkii baanu idiin samaynaynaa waxaanaanu jecelahay inaanu beerihii gaadhno oo beeralayda meeshoodii ugu tagno waxaana soo arkay markii aan wasaaradda imi kormeerkaygii ugu horreeyay aan sameeyey meesha la yidhaahdo xeego ee gobolka awdal ka mid ah waa meel dooxooyin isugu yimaadaan buuroley iyo faali ah dooxooyinka la beero waxaan u tagnay inan yaroo 19 jira oo 2 hektar oo tamaandho ah beeray waxay la socday niman dhakhaatiir ah oo dhakhaatiirtii beeraha ah waxay la socday niman kaloo technicianskii beeraha ah oo aan sii kaxaystay inankii yaraa tacabkii uu galay ee dhowrka bilood uu galay ee uu maxay baatroolkii oo qaaliyoobay generator uu kaga soo qaadanayay biyaha ceelka markaanu istul taagnay ee inankii yaraa aanu eegnay waxaanu su'aalnay tamaandhadan way kaa baaday tacabkii 2 hektar uu galay sababtay u baadayna waa sabab tikniik oo fudud oo loo sheegi karo oo la gaarsiin karo oo wasaaraddu gaarsiin karto maxay uga baaday tamaandhadii dhulkay taallaa lama taagin wixii u baxay midhii way soo baxeen cayayaankii baa cunay halkaasay ku istaagtay waxba uga soo bixi maayaanu suuqii geeyaa maxuu ku filaa marka ninkii technicianska ahaa ee ila socday farsamo yaqaanka aan weydiiyey wuxuu yidhi hadduu 4 taageede halkaa yaalla soo gooyo oo uu taago xadhig yar ku xidho tamaandhada taago cudurkan kuma dhaceen soo nasiib darro maaha inankaa yar soo tacab khasaar maaha muxuu samaynayaa de waa inuu soo galaa boorame oo baalasho la noqdaa ama tahriiba horta halkaynu taaganay beertii iyo xidhiidhka wasaaraddii u dhaxeeya ama baaxmusharigeennii iyo ganacsatadeennii u dhaxeeya waa kaa wixii lagu ridaba way soo baxayaan aynu dhulkeennii aaminno berigii hore Hargeysa waxaa jiri jirtay dooxa ina dhex mara labadiisa dhinacba beeray ahaayeen qofkii garanaya waxa ka soo bixi jiray khudrad ay nooc ayaa ka soo bixi jiray ilaa madheerkii baa bixi jiray ilaa caadkii amba shooqii waxay ku fillayd suuqa magaalada Hargeysa halka imaka waaheeda gubatay ayaa la geyn jiray lala soo lugeyn jiray halkaas lagu iibin jiray Hargeysa oo dhan way ku fillayd maanta dooxeeni halka uu taagayay wala baloolay wax soo saarka wasiiro Hargeysa uu ku fillaan jiray meel kale uma doonan jirin khudradda iyo maxay wixii soo baxay fruitska waxaan anigu ku talin lahaa in dooxyadii dib loogu noqdo dooxii Hargeysa way naga xidhmay laakiin dooxyo badan bay leenoo dhowr boqoloo dooxa dooxyada waxba laga beeri jiray dooxa darar weynay oo dhowba kamid ah in dib loogu noqdo dooxyadii wax laga beero dawladdii ama xukuumaddii iyo wasaaraddii beeraha uga wakiilay ay xiriir la samayso baaci mushtarigii oo inagoo wada jirna aynu tagno dhulkii aynu beeranno waa la barbar taagan yahay waxaan ku soo gabagabeynayaa tusaale kale oo aan arkay anigoo wasaaradda hawlaha guud u shaqeeya ayaan Hargeysa ku imi shaqo nin gaalo Greega ila socday habeennimadii dooxa Hargeysa 2 saacadood baan taagnay waan soo dhaafi kari weynay waqti hore ahayd waan soo dhaafi kari weynay dub baan u noqonay Hargeysa gilaaba markaan shaqeynaysan islaaynu soo cashataga way noqon weynay subaxnimadii baan soo baxnay halka wasaaradda hawlaha guud hadda tahay oo wasaaradda hawlaha guud aanu nimi shaqaalii baanu ka soo horeynay islaam baanu ag fadhiisano isla koob shaaha ka caba islaantii dabkii way shiday marka uu cabaar fadhinay baanu maxaa u saari weyday shaahi waxay tii inantaydii yareed ayaan u diray biyo oo
kaamba axmara meesha la yiraahdo wasaaradda hawlaha guud ka soo sokaysa biyay soo dhaaminaysa oo biyo laanay hadda qabso xalayna 7 saacadood ka hor toogaasu labada dhinac buu maray wararta tacabeen u baahanay tacaba loo baahayay koow biyaha in la xidho waana fududayso loo xidhaya injineerada waddanka hadii la isugu keeno oo aqligooda la maalo oo maskaxdooda la maalo way fududaysan u xidhayna buuraha dhexdooda inuu xidhanayna anigu marka wasaaradda hadda yimi waxaan isugu yeeray aqoon-yahankii beeraha 30 aqoon-yahan baa yimi oo idle Hargeysa dhex fadhiya oo qaar PhD yihiin qaar master degree haystaan waxaan su'aal baan weydiiyey waxaan idinka doonayaa inaad soo saartaan maxaynu wax u beeran laanay maxaynaga hortaagan haddaynu beeranayna maxaa beerihii inoogu soo bixi waayeen oo inoogu filaan waayeen riboodkaana waa idinla wadaagi doonaa shir baanu qaban doonaa ribood wanaagsan bay soo saareen sababta beeruhu aynu beeran laanay problemskayna hortaagan challengeska inaga hor yimi iyo solutionkiiba way ii keeneen oo inaan xalku waa halkaa kaana waa idinla wadaagi doonaa wasaarad ahaan insha Allah waxaanu qaban doonaa shir aanu la wadaagayno saddexagalka aan sheegay beeraleyda oo iskaashatooyinka fadhiyaan baacimisariyo aadan halkaa iga muuqdo iyo annaka oo hormood ka noqon doona inaynu ka sheekaysano ama xal ka gaarno sidaynu beeraheennii oo dhulkii aamini lahayn oo aynu foorarsan lahayn oo aynu wax ugala soo bixi lahayn wassalaamu calaykum